nin askariya oo isagu ragga weliba askarta ugu aqoon badnaa ayaa wuxuu ahaa nin awaamirta aan sidooda u qaadanoo murma saraakiishana had iyo jeer ay murmaan darajo kastuu qaato inta aan talabaad aan la gaadhin ayaa laga qaadi jiray sababta looga qaadi jiray waxay amar madaxeed oo uu diiday ama shaqo loo diray oo fulin waayey dood uu ka dooday arrin loo diriyay ciidamada guud ahaan arrimahaasoo dhan baa ku keeni jirtay amar diido iyo nin markaa had iyo jeer darajadiisa ka naaqusto ninkii ayaa haddaba maalin maalmaha ka mida isagoo oo dhugdhugle waa moota isagoo wata oo shaqadii ka soo dhawaxay shil galay madaxa dhaawac weyni ka gaadhay waa sheekee dabeedna waxaa la geeyey dhakhtarkii qalliinka ayaa shaqadiisii qabsaday maskaxdii buu soo saaray oo uu tallaagada geliyey takhaatiirta raallaha inaga ahaadeen sheekadeenna halkaa ka arooraysa wuxuu ku qoray waraaqbu markaa kutusa kaga saaray magacii askariga oo saabsan ahaa iyo darajadiisii ciidamadu ka tirsanaa lafihiibuu ka qoray madaxii waanu daweeyey wuxuu ilaabay dhakhtarkii inuu ku celiyo maskaxdii wuu bogsaday askarigii daedna uu ka baxay dhakhtarkii muddo kadib dhowr sannood kadib ayaa tallaagadii isaga oo baariya dhakhtarkii wuxuu ka helay maskaxdii askariga waa sheeke wuu nahay markaa dhakhtarkii telefoon buu u diray askarigii xeradiisii wuxuu yidhi waxaan u baahanay askariga magaca iyo magacaale xeradan ka tirsan ninkii telefoonka qabtaayre ha qaldanin taliyaha dhe taliyaha markaasuu waxaan doonaya askarigii saajinkai caynka ahaa ee beriga caynkaa shilka galay aan maskaxda ka qalay markaasuu yidhi waa korneylka xerada xukumada isagaa noo taliya markaa bismillahi waa bal ii gudbi dhaqsi igu gudbi dhaqsi ugu gudbiyey telefoonkiibuu ugu dhiibay markaasuu soo hebel ma jeed haa waaniga raalli ah waxaan lahay ninkii dhakhtarka ahaa berigii ku qalay maskaxdaadii baan hayaa walaa dhaqseeyii soo gaadh meel baan ka dhacay aan kuu geliya maskaxdaadii mas-uul uma baahniba waaban ka raystay buu yidhi askarigii baa yidhi mas-uul maxaa dhacay markaasuu waa bahashii awal muranka aan kula mudi jiray madaxda igu kalifi jirtay iyo darashada layga qaado markaan askarnimada ka baxaan soo doonanaya yahay buu mas-uul hadda maxaad ku fikeraysaa ta taliyahaygu taliyahayga maskaxda taliyahaygaan ku fikeraya